Barcelona ayaa ku fashilantay inay wax guul gaadho labadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Liga kadib markii ay kooxda Barca la gashay kulankii maanta kooxda Getafe oo kusoo dhamaaday Eber iyo Eber sidoo kale kulankii ka horeeyay ee Eber iyo Eber la soo gashay kooxda Girona. Haddaba kooxda Barcelona ayaa sidoo kale kulankii saddexaad oo xiriirahoodu wax gool dhalin weeday haday noqoto labadii kulan ee ciyaartay horyaalka iyo sidoo kale kulanka ay ciyaartay Copa del Rey ay la ciyaartay kooxda Real Madrid. haddaba farqiga u dhexeeya labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa horyaalka waxa uu yahay 12 dhibcood xilli ay kooxda Barcelona leedahay 73 dhibcood halka Real Madrid ay leedahay 62 dhibcood. dhinaca kale kooxda Manchester United oo isha ku haysa kulanka ay la ciyaari doonaan lugta labaad horyaalka Europa League wareeggiisa dhamaadka kooxda Sevilla ayaa kooxdu waxay ku soo badisay 2-0 iyadoo boqotay garoonka kooxda Nottingham Forest. haddaba ciyaartoyda Anthony Dalot ayaa u kordhiyay labada gool kooxda Manchester United xilli uu tababare Ten Hag xal u waayay arrinkii ahayd fursada khasaarinta maadaama kooxda Manchester United waxyaabaha ay bareejaha u gashay kulanka u dambeeyay ka ahayd kooxdu inaan dhameystirin kulanka oo ay ka faa'iideysan fursadaha heleen ciyaartoydeedu.